السلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا ميل كستا والدنيا كجوكتان جمعة ونكسن أيان إذن لنا هاي دمانتينبا ومقال كاللباطة إنو كوكل ما إنو مانتا وشان يتوبان ايتاي بشا مي سنة كاللباكون لحي لباتان halkaad naga daawanaysaan waa channelka Cabdilcasiis Barrow qodobada tibintan aan idin kugu hayo waxa kamid ah hadalladii ugu adkaa iyo hanjabaadihii ugu cuslaa ay isdhaafsadeen maanta dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu leeyahay Iran si kasta oo ay ku badbaadi karayso ma jirto ilaa ay ka tanaasuleyso hubka nuclearka halka dawladda Iran ay yiraahdeen khiyaaraad kasta oo Trump qaato waxaan diyaar u nahay in aan si degdeg ah uga hortagno hadal la yaab leh ayuu jeediyay wasiirka muraha dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran Abbas Araghchi oo aan ku lafaguri doona barnaamijka xilliga aan idin la joogay khiyaarta inala socotay khilaafaad siyaasadeed oo aad u xoogan ayaa u dhaxeeya dawladda isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba nidaamka gacan ku samayska ah ee Israel warbaahinta gobolka bariga dhexe qaarkood waxa ay ku waramayaan inay dhamaatay xiriirkii loo yaqaan bisha malabka markii labada dhinac ay bilaabeen in ay isfashilaan oo ay ku dagaalamaan warbaahinta horteeda haddaba arrintan sidee loo macnayn karaa Israa'iilna ma waxay dabin la raadinaysaa wadanka isutaga Imaaraadka Carabta oo ah inay gaarsiiyaan meel aysan ka soo laaban karin Maxamed bin Said ayaa la eegayaa sida uu uga jawaabi doono arrintan haddii aan eego isla wararka gobolka bariga dhexe dawladda Iran ayaa waxay leedahay dagaalka gobolku ma dhammaan karayo ilaa iyo inta wararku ay sheegayaan baalayri la xaqiijin doono in marinka Hormuz ay yeelan doonto dawladda Iran oo caalamku ay si weyn arrintaasi uga garaabayaan taliyaha ugu sareeya ciidamada dalkaasi Iran waxa uu leeyahay waynu dagaalami doonaa ilaa dhibicda ugu dambeysay dhiiga ay ka bixi doonto korkeena isla markaana aan dunida macsalaameyn doono qodobada soo baxaya waxay tilmaamayaan in laga maarmaan uu noqonayo dagaal mar kale gobolka bariga dhexe ka dhaca oo xaaladiisa aad looga deyrinayo qodobadaas iyo warar kale ayaan idin kugu hayaa tabintan khiyaarta inala socota ay jimco wanaagsan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in uu qalqaalinayo dagaal cusub oo ka dhana wadanka Iran isla markaana gobolka bariga dhexe si weyn u galgali doona hadalkii ugu dambeeyay dalkaasi uu ka sheegay waxay ahayd in uusan aqbali doonin nuclear inay haystaan ama ugu yaraan ay qaataan heshiis ay ku joojinayaan bacriminta hubkaasi muddo 20 sanadood madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan wax diidma ah ka qabin in Iran ay hakiso barnaamijkeeda nuclearka muddo 20 sanadood balse wuxuu carabka ku adkeeyay in arrintaasi ay noqoto heshiis dhab ah oo la isku halayn karo oo caalamka hortiisa lagu galo Trump oo ka hadlayay xaaladda wada xaajoodka nuclearka u dhaxaysa Washington iyo Tehran ayaa yiri wixii wax dhib ah igama haysto in Iran ay joojiso barnaamijkeeda nuclearka muddo 20 sanadood laakiin waa in ay noqotaa ballanqaad dhab ah oo la isku halayn karo ayuu hadalkiisan ku sheegay hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisada ka dhaxaloosan Mareykanka iyo Iran ay cirka isku shareereysay kadib dagaalkii iyo wada xaajoodkii hagadka galay muddada bisha ku dhow oo dhinacyadu ay wali heli laayeen ajanda rasmi ah isku raacaan maamulka Trump ayaa muddo dheer ku adkeysanayay in ay weerari doonaan wadankaasi haddii aanay joojin bay yiraahdeen arrimaha la xiriira nuclearka iyo qatarta caalamku ay ku hayso dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga markii uu Trump hadalkaasi sheegay isla markaana ay soo baxayaan khiyaaraadka military ee dawladdu ay qaadan karayso waa Washington Tehran ayaa ku jawaabaysa hadalkii ugu cuslaa oo Trump dhagihiisa xanuujiyay wasiirka muraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi oo ah diblomaasi gaamuray waxa uu leeyahay innaga dagaalka waxaynu hadda inoo yahay guulo ballaaran
oo waxaynu qabjabinay dalkii Mareykanka ahaa ee qatarta weyn ku ahaa adduunka. Saatee tillaabooyinka haddaynu hor yaalla ma aha kuwa la cabsi gelinaya waddankan Iiraan. dowladda Iiraan ayaa si taxadar leh uga falcelinaysa hanjabaadaha cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan suurtagalnimada weerar militari oo cusub oo ka dhana Iiraan kadib safarkiisii Shiinaha iyo kulankii uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. Mas'uuliyiinta Iiraan waxay sheegeen inaysan fududeynayn hadallada Washington inkastoo ay raadinayaan ama ay shaki gelinayaan weerarada Mareykanka iyo weeraha ka imaanaya. wasiirka amuraha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in dalkiisu uu ku jiro heerkii ugu sareeyay ee diyaar garowga isagoo si uu uga hortaga baa layiri weerar kasta oo nacasnimo ah oo ay soo qaadaan dhinacyada ka soo horjeeda. Araghchi waxa uu sheegay in Iiraan ay horay 2 jeer ula kulantay cadaadis iyo culaysyo military oo Mareykanku uu sameeyay sidaas darteedna hadda ay leedahay khibrad wanaagsan oo ay ugu babac dhigi karayso dalkaasi Mareykanka. hadalkiisa waxa uu dhigmaa guulguul inta uu ka jiro colaadda tooska ka ama goyso. sidaas darteed ma jiraan buu leeyahay cabsi weyn oo hadda in hortaagan. dhinaca kale dowladda Iiraan ayaa soo bandhigaysa shuruud kale oo cusub oo ay ka mid yihiin arrinta marinka Hormuz iyo qaabka loo ebi karayo colaadda haddii Iiraan nabad laga raadinayana ay tahay muhiimadda jidadkaasi in la soo maro. Iiraan ayaa tallaabo istiraatiiji ah ku furtay marinka maraakiibta ee Shiinaha oo kaliya si Hormuz ay u isticmaalaan, taasi oo loo fasiray baa layiri fariin toos ah oo ku soconaysa dowladda Washington. Trump waxa ay muujisay in ay furaha amniga iyo isu socodka maamulka gacanteeda uu ku jirayo isla markaana aysan cunaqabataynta Mareykanku la xiriirin wax dhibaato ah oo gaari karayso. haddii la rabo wada hadalladu in ay miro dhalaan waxa ay Iiraan ku tiraabaysaa in la joogo waqtigii loo aqoonsan lahaa in marinkaasi Hormuz iyadu ay si toos ah u maamulayso, isla markaana caalamku uu aqbalayo lahaanshiyaha marinkaasi maamulkiisa uu gacanta uga jiro dowladda Tehran. ilaa 4 qodob oo kale ayay soo jeedisay oo ka mid ah in loo aqoonsado marinkaasi, in la joojiyo colaadda, lana qaado cunaqabataynta, in la bixiyo magdhowga qasaaraha dagaalka iyo in dib loo sii daayo hantida dowladda Iiraan uga xayiran caalamka, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in wadaxaajoodka nuclear-ka loo galo qaab cusub oo dheelitiran oo aanay jirin wax qorqabada oo waddankaasi lagu sameynayo. intii uu socday shir ay yeelanayeen wadamada BRICS ee ka soo horjeeda reer galbeedka, wasiirka amuraha dibadda ee waddanka Iiraan waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu dhaawacayo hanaanka sharciyada caalamiga ah iyo waliba qaabka isdheelitirka dowladaha. cidda kaliya oo arrintaasi ka hortagaysana ay tahay dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga. taliyaha ugu sareeya ciidamada difaaca qaranka waddanka Iiraan ee loo yaqaano Al-Harath Al-Thawri ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin in dagaalka ay sii wadayaan ilaa dhibicda ugu dambaysa ee jirkoodu ay ka gobo leedahay oo dhulka ay ku dhici doonto, taasoo macnaheedu yahay dowladda Iiraan inaanay isdheebi doonin ay diyaar u tahay in ay si weyn u dagaalanto oo aanay ka bixin dagaalada looga soo horjeedo dhinacyada cadowga ah bay yiraahdeen oo lagu badbaadinayo qarannimada iyo jiraalka dowladnimo ee Tehran. taliyaha guud ee ciidamada dalka Iiraan Amir Hatimi ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay sii wadi doonaan difaaca dhulka iyo madax banaanida Iiraan ilaa dhibicda ugu dambaysa ee dhiigga ay ka bixi doonto. sida ay baahisay wakaaladda wararka Iiraan ee ku dhow ciidamada ee Tasniim la yiraahdo, Amir Hatimi ayaa sheegay in awoodda Iiraan ay ku saleysan tahay iimaan iyo ruux dagaal oo jahwareer ku riday buu yiri dhinacyada nagu soo gardarooday ee dhibaatooyinka geysanaya. waxa uu leeyahay xoogga iimaanka ayaa cadowga ku riday jahwareer heer uu u qalmo baa layiri bartilmaameedka diyaaradaha uu leeyahay in ay daba maraan. waxa uu intaasi ku daray in ciidamada Iiraan ay si buuxda uga go'an tahay ilaalinta midnimada dhuleed, madax banaanida qaran iyo nidaamka Jamhuuriyadda Islaamiga. waxaan difaaci doonaa midnimada dhuleed oo dalka ilaa dhibicda ugu dambaysa ee dhiigga ay ciidda ku dhici doonto. ciidamada qalabku waxay awoodaan
awoodaan oo dhan ayay adeegsan doonaan difaaca madax banaanida iyo haykalka qarannimada jiraalkiisana waa mid aan laga maarmi karin. xaatami ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in howlgalkan uu yahay waajib qaran oo muqadas ah islamarkaana ciidamadu ay sii wadi doonaan ilaa laga gaaro buu yidhi guul dhammaystiran. hadalkan ayaa imanaya xilli gobolka uu iminka marayo meel aad u hooseysa oo dhibaato xoogani ay ka taagan tahay lagana baqayo dagaalkii gobolkaasi mar kale inuu dib u soo laabto. bishii malabka ayaa dhammaatay oo ay isku cindanaayeen nidaamka gacan ku samayska ah ee Israa'iil iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo iminka ay la yaaban yihiin wadamada khaliijka iyo dunida islaamka qaabka ay jahwareerka ugu jirto. arrintani waxay ka dambeysay markii xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu soo bandhigay arrimo sir ahayd oo dowladdaasi isutaga Imaaraadku ay aad uga caroodeen. waxaa cirka isku shareeray xiisadda cusub ee u dhaxaysa dowladda isutaga Imaaraadka iyo waliba nidaamka Israa'iil kadib markii ay soo baxeen warar la xiriira booqashooyin qarsoodi ah oo la sheegay in madax sare oo Israa'iili ay ku tagaan magaalada Abu Dhabi intii uu socday dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku jiteeyeen wadanka Iran. xiisaddan ayaa soo ifbaxday kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu shaaciyay in Netanyahu uu booqasho qarsoodi ah ku tagay Imaaraadka isla markaana uu kulan la yeeshay madaxweynaha wadankaasi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. xafiiska ra'iisul wasaaraha nidaamka ayaa booqashadaasi ku tilmaamay inay tahay guul taariikhi ah oo dhanka xiriirka labada dhinac ah, balse ma uusan sheegin waqtiga saxda ah ee faahfaahinta heshiisyada la gaaray la dhammaystiri doono. arrintaasi markii ay banaanka u soo baxday xafiiska warfaafinta amuraha dibadda ee dalka Iran, dalka isutaga Imaaraadka ayaa ku dhawaaqay doodaasi inay tahay mid jaban oo waxba kama jiraan ah isla markaana la doonayo in lagu marin habaabiyo guud ahaanba caalamka. wakaaladda wararka Imaaraadka ayaa si rasmi ah u beenisay wararka sheegaya in Netanyahu iyo wafdi military iyo kuwa sirdoon ay tageen dalka toddobaadyadii la soo dhaafay. bayaan ka soo baxay Abu Dhabi ayaa lagu sheegay in xiriirka Imaaraadka iyo Israa'iil uu yahay mid rasmi ah oo ku dhisan heshiiska Abraham isla markaana uusan ahayn baa la yidhi mid ku dhisan sir iyo qorshayaal qarsoon oo qudba sira ah. Imaaraadku waxa uu sidoo kale sheegay in warbaahintana ugu baaqay inay ka fogaadaan baahinta wararka aan la xaqiijin. warar kale ayaa soo baxaya oo la xiriira khilaafaadkan inay haatan cirka isku shareerayo. warbaahinta Israa'iil ayaa sii kordhisay baa la yidhi cadaadiska kadib markii la sheegay in taliyaha guud ee Israa'iil ee Eyal Zamir uu isna booqday Abu Dhabi maalmo ka hor isagoo la kulmay madaxda sare ee Imaaraadka. wararkan ayaa si isdaba joog ah loo sheegay in ay ka caroodeen Abu Dhabi maadaama ay rumaysan yihiin in Imaaraadku aanu doonayn in uu fagaare la istaago waxyaabaha la xiriira heshiiskan iyo waliba xiriirada labada dhinac u dhaxeeya. sida ay qortay warbaahinta Israa'iil, Imaaraadka ayaa fariimo cabasho ah oo adag u diray Tel Aviv iyagoo ka xumaaday in xafiiska Netanyahu uu shaaciyay booqashooyinkii qarsoodiga ahaa. sababta hadda loo shaaciyay ayaa dhinaceeda waxay tahay mid kale oo muran ka taagan yahay. falanqeeyaalku ayaa qaba in Israa'iil ay si ula kac ah hadda u shaaciso xogtan iyadoo oo muujinaysa inay weli taageero gobolka ah ka haysato gaar ahaan dagaalka Iran kadib. dhinaca kale Imaaraadka waxa u muuqdaa inuu doonayo in uu ilaashado isu dheelitirka xiriirka uu la leeyahay Iran iyo reer galbeedka, taasoo keentay in ay ka xanaaqdo sirta banaanka u soo baxaysa. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa qudhiisa sheegay in dalka Imaaraadku siday u dhaqmayaan ay tahay mid aan farxad gelin wadankaasi Iran. ugu dambeyntiina 8 ka mid ah askarta ciidanka Pakistan ayaa lagu dilay xuduudda u dhaxaysa wadankaasi Pakistan uu la leeyahay Afghanistan. xiisadda u dhaxaysa labada gobol ama labadaasi dal ayaa laga baqayaa mar kale inay dib u soo laabato wixii ka dambeeyay heshiiskii lagu gaaray dalka Qatar kadib markii dhinacyadan ay si weyn dagaal iskula galeen. akhyaarta nala socota ay jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay. tabinta labaad ee maanta iyo baahinteena wararka gobolka iyo faaqidaada taxliilinta caalamka iyo diblomaasiyadda intaas ayaan ku soo goobaya. waa Cabdicasiis Barrow idile
si wada jira uga xirnaada channelkan iyo kan kale ee Barrow Show iyo barta Facebook oo aan dhammaantood idin ugula wadaagayo xogta ugu dambaysa. Waa mahadsantiin.